Haya qaarta soo dhawaada muuqaalkeen maanta wuxuu ku bilaabanayaa lamaane labadan lamaane aad ay isku faraxsan yihiin noloshoodana waa mid iska caadi ah labadii lamaane ayagu isla joogo isku faraxsan ayaa waxa soo wici doona lambarka waxa qaban doono James waxa loo sheegi doonaa aabihiisa inuu geeriyooday James iyo saaxiibtiisa way soo bixi doonaan waxay imaan doonaan magaalada oo ku geeriyooday aabihiisa halkaas oo aabihiis ku lahaa shirkad aad u weyn James iyo xaaskiisa Sofia waxay ku soo wareegsan doonaan magaalo kale waxayna degi doonaan guri aad u weyn oo James aabihiis ugu dhintay Sofia xaafadan aad ku weyn way ku caajistay maalintii oo dhan waxay joogtaa kaligeed maalintii ku xigtay Sofia waxay u sheegi doontaa ninkeeda James in xaafadan ay ku caajistay oo asigana oo siinin wax waqti ah Sofia laakiin James ay wuxuu dhihi doono waxaan rabaa in aan ogaado data analyzing-ka shirkadda waxaan rabaa in aan la socdo aabahayga ganacsigiisa anigoo mar dhow ku wareegi doono ganacsiga aabahayga James wuxuu diyaar u yahay inuu la wareego booska aabihiisa wuxuuna rabaa inuu shirkadda ka noqdo maamule wuxuuna macsalaameynaya xaaskiisa James xaaskiisa Sofia wuxuu u sheegi doonaa in waajib ku tahay inuu aasto shaqada wuxuuna u sheegi doonaa inuu ka soo daahaynin wuxuuna ku rii doonaa waqtiga Janice hayo waa ku imaan doonaa James wuu baxay wuxuuna aasanayaa shaqadiisa guriga wax ku soo harayso Sofia waxay bilaabaysaa inay qorto buugaas ay ku magac dartay sidee waqti loola qaataa lamaanahaaga Sofia waxay ku caajisaysaa qoraalka buuga waxaan isla markii u imaanayso haweeney ka shaqeyso guriga waxayna ku dhigi doontaa ma ku caabiyaa Sofia ayaa ku qeyli doonto naagtii guriga ka shaqeynaysay waxayna ku dhigi doontaa waqti ka qaatay ee iga tag ma rabi wax cunto ah waxna ha ii keenin dhanka kale waxa shaqada ku wareegay James wuxuuna ku wareegay booska aabihiis oo ka dhintay waxa la joogo waqtigaasii asiisanka ama caabiyaha aabihiisa wuxuuna tusayaa shaqada iyo waxyaabaha la qabanayo xariifkan lagu magacaabo Ronaldo James wuxuu u sheegi doonaa wax fara badan wuxuuna ku dhigi doonaa shirkadda sanadihii u dambeeyay wuxuu u socotay kor wuxuuna sii doonaa database-ka shirkadda wuxuuna ku dhigi doonaa shirkadda hadda ka bacdi adiga ayaa la wareegay habeenkii waxa soo daahayo James wuxuu imaanayaa gurigiisa xaaskiisa aad ay u walwalsaneeday waxayna rabtay James inuu imaado iyo waxayna ku dhigi doontaa waa soo daahday wuxuuna dhigi doonaa ku soo daahay shaqada waxayna ahayd maalintii ugu horeysay shaqadeeda waxaan la tusayay waxyaabo fara badan laakiin xaaskiisa Sofia ayaa xanaaqsaneed waqtigaas waxayna ku dhigi doontaa xaafad waxa ay u qabtay caajis Sofia waxay kale oo ku dhigi doontaa ninkeeda James waxaan ku siinayaa 2 sano oo mushaar ah iska dhaaf shirkadda aasan ee ila joog aniga waqtina ila qaado James ayaa hadalkaas ka xanaaqi doona wuxuu u sheegi doonaa shirkadda inay ka qaalisan tahay lacagta 2 sano ah oo siinayso wuxuuna u sheegi doonaa inuu shirkadda asiga uu leeyahay oona ka yahay shaqaalo laakiin Sofia waxaasna kuma qanacsaneenin waxayna xaafadda ku dareentaa caajis maalintii ku xigtay James oo ku jiro shir oo la shiraayo shaqaalaha shirkadda ay waxay soo wacaysaa James waxaana loo keenayaa telefoon James wuxuu u sheegi doonaa hadda inuu waqti haynin oo ku mashquulsan yahay shaqadiisa oo waqti kale soo wacayo Sofia ilaa hadda xal ma helin waxaana caajis ku haysto ilaa hadda guriga Sofia maalintii kale waxay soo wacaysaa James asigoo ku jiro shaqadiisa waxayna weydiinaysaa su'aalooyin fara badan oo maalayacni ah waxayna ku dhigi doontaa ii sheekay waqtina ila qaado laakiin James oo hadalka diidi karin xaaskiisa ayaa u sheekeynayo wuxuuna u sheegi doonaa inuu mashquul yahay hadda maalintii ku xigtay James wuxuu la tashanayaa la taliyihiisa oo ah la taliyaha company-ga Ronaldo wuxuu u sheegi doonaa James inuu mar walba xaaskiisa ee soo wacdo wuxuuna u sheegi doonaa in mar walba ku dhacdo xaafadda waxaan ku dareemaa caajis waxayna ugu wareegisay telefoon waana ka shaqeysa laahay laakiin Ronaldo ayaa wuxuu leeyahay hadaad lacag bixinaysi wax kasta xal waa loo hayaa James wuxuu haystaa lacag aad u fara badan wuxuuna dhigi doonaa diyaar ay u ahay hadaa haysin xal Ronaldo oo ahay la taliyaha James wuxuu tilmaami doonaa meel lagu gado roboodyada maalintii ku xigtay waxay soo aasanayaan meel lagu gado roboodyada Sofia iyo James waxa halkaas ku soo dhaweey doono milkiilaha company-gan wuxuuna ku dhihi doonaa maxaa u baahantihiin Julia oo shirkadda madaxda ka ah wuxuu tusi doonaa Sofia roboodyo badan wuxuuna tusi doonaa gabar robood ah oo lagu magacaabo Jessica waa laga hadashiinayaa wuxuuna Sofia ku dhihi doontaa wax kasto arabto ku sameeynaya waana ku adeecayaa Sofia weydiidi doontaa naagtan boodka ah waxayna ku dhigi doontaa muubaan naagtan boodka ah waxa meel gooni isku soo bixi doono James iyo Sofia James ay wuxuu ku dhigi doono hadana hadaa ku keenay meel boodad lagu gadaayo kuma qanacsanid miya boodadkan laakiin wuxuu ku dhigi doontaa boodadkan mirabi waxayna kale ku dhigi doontaa hadaa naag bood ah xaafadda keensado waan ka masiiri doonaa waxaana kaaga masiiri doonaa adiga James ay ku dhigi doono maxaa rabtaa marka waxayna ku dhigi doontaa waxaan rabaa nin bood ah markay soo tashtaan ka bacdi wuxuu ku soo noqon doonaa ninka iskale company-kan lagu gado roboodyada magaciisana la dhaho Julia ay wuxuu tusi doono boodka u baahan yihiin wuxuu tusi doonaa bood nin ah boodkan waxa lagu magacaabaa Henry wuxuu dhigi doonaa wax kasta oo sameynaya ay rabaan dadkan James wuxuu bixinayaa lacagtii waxaana loo programinayaa boodkii Henry ahaa Julia oo shirkadda iskale wuxuu ku dhigi doonaa hadaad ku aragtiin boodka cilad waa isoo sheegi kartiin waan isoo wici kartiin waqti kasto Henry markuu xaafadda imaado isla markii wuxuu sameynayaa quraac laakiin Sofia kuma qanacsaneenin ilaa hadda Sofia ninkeeda ayaa imaanaya James waxayna u sheegi doontaa ilaa hadda inayna helin iyada farxad waxayna ku dhigi doontaa ilaa hadda waxa ay caajis robotkan
ay keentane naagtii shaqaalaha guriga ka shaqaynaysa waxba ima dhaamo. Waxayna ku dhihi doontaa ilaa hadda waxaan arkaa naag shaqaalaha camal wuxuuna karinoyaa cunto wax ma dhaamo shaqaalihii guriga joog jiray. James ay wuxuu ku dhihi doono maxaa kale oo kuu sameeya oo kuu haray. Waxaa robotkaaga soo bixiyey lacag aad u fara badan. waxaana halkaa ku kala tegaayo iyagoo qanacsanaynin Sofia iyo ninkeeda James. subaxdii Sofia oo iska bedelayso dharkeeda ayaa si qalad wax qolka jiifka kusoo galayo Henry oo ah boodkii. laakiin Sofia way xanaaqaysaa isla markii waxayna wacaysaa ninkeeda James. waxayna ku dhihi doontaa boodkii wuxuu sameeyey wax qaldan anigoo dharka bedelinaya wuxuu ii soo galay qolka. laakiin ninkeeda ayaa wuxuu ku dhihi doono waxaas waa bood ma ahan bilaadan. wuxuuna ku dhihi doonaa waxba kale ma ogo waa robot. habeenkii markuu soo hoyaado ninkeeda wuxuu u sheegi doontaa wax kasta oo ay aragtay maanta. waxayna ku dhihi doontaa boodka bood aan caadihin ayuu ahay. laakiin ninkeeda James ayaa wuxuu ku dhihi doona boodka ma ahan bilaadan mana galo qalad. maalintii ku xigtay James wuxuu soo wadanayaa boodkii Henry ahay. wuxuuna u soo wadanayaa meel ay ku wada ciyaaraan tennis. laakiin boodkii Henry ahay ayaa wuxuu u sheekeynayay James. wuxuuna ku dhahayay hadallo aan caadi haynin. wuxuuna u hadlayay sidii bilaadanka camal. wuxuuna James ku dhahayay hadallo oo la yaabiyo. hadalladaas oo ah hadallada bilaadanka camal. wuxuuna James ka wareysanayay shirkadiisa. wuxuuna ogaay aabihiisa dhimashadiisa iyo wax walbo. James xaafadiisa markuu imaado wuxuu sheegi doonaa xaaskiisa Sofia wax kasta oo kusoo argiyay boodkan Henry ah. wuxuuna ku dhihi doonaa wax walba wuu ogyahay boodkan. laakiin wuxuu u maleynayaa eeka inay kusoo programiyeen shirkadda. Sofia waxay adeegsataa boodkii Henry ahaa. waxayna u wadataa meel kasto asigoo u qaado alaabta. James iyo Henry oo sameynayo gaari waxa imaanayso Sofia. waxayna ku dhihi doontaa ninkeeda James waan ku jeclahay. laakiin hadalkaas waxaa maqlayo Henry oo ah boodka. wuxuuna ku dhihi doonaa James xaaskaaga adiga ma jeclid iyada ayaa ku jecel. wuxuuna ku dhihi doonaa xaaskaaga waqti ma siisi mar walbana waxa ku mashquulsan tahay shaqadaada waxaa kaaga fiican xaaskaaga. James wuxuu ka yaabi doonaa Henry sidoo uu hadlayo. wuxuu hadlayaa sida bilaadan camal. haddana wuxuu ogyahay nolosha James iyo Sofia ka dhaxayso. Sofia waxay ku amri doontaa Henry inuu cabo biyo. waxayna sii doontaa biyo. Henry wuxuu cabi doonaa biyihii. James iyo xaaskiisa Sofia oo waqti ku qaadanayo guriga qayb kamid ah ayaa waxa uu imaan doono Henry wuxuu wadiyay cabitaan. wuxuuna u keeni doonaa Sofia iyo James. wuxuu u sheegi doonaa labadooda hadda inay yihiin laba qof oo isjecel ee nolosha sidaan u sii wataan. laakiin waxaa la yaabi doono James. wuxuuna ku dhihi doonaa adiga maxaa ka taqaanaa jaceylka ma ii qeexi kartaa jaceylka wuxuu yahay. Henry wuxuu bilaabi doonaa qeexitaanka jaceylka. wuxuuna u sheegi doonaa jaceylka inuu yahay nolol aan laga maarmin. wuxuuna ku dhihi doonaa ilaasho adiga xaaskaaga. Sofia ayaa yaabayso markaas waxayna ka yaabaysaa hadalkaas. waxayna ku dhihi doontaa maxaa ka wadaa ilaasho. wuxuuna ku leeyahay wax kasta oo la ilaasho waayo waxaa qaadato qof kale. habeenkii sada dhexe waxaa soo kacaysa Sofia. waxayna maqlaysaa dhabaq. waxay soo daba kacaysaa dhabaqdaas. waxayna imaanaysaa banaanka. waxayna ku dhihi doontaa maxaa ku dhacay. laakiin Henry ay wuxuu ugu jawaabi doono aniga waxaan ku riyooda riyaan caadi ahayn. waxayna ahayd riyadaas riya ii sheegayso inaan ahay bilaadan. subaxdii waxay wacayaan Julia oo ah ninkii iska leh boodkan. waxayna ku dhihi doonaa boodka waxaan ku aragnay dabeecada aan caadi ahayn. wuxuuna keenay xalay inuu ku riyoodo inuu yahay bilaadan. Julia wuxuu u sheegi doonaa inuu robot oo riyoonin. wuxuuna ku dhihi doonaa waxa ka qaldan systemka. waxa uu diri doonaa softwarekiisa update waxaana kasoo dhigi doonaa mid fiican. habeenkii Sofia waxay wareysanaysaa boodkii Henry ahaa. waxayna ku dhihi doontaa riyada maxay ahayd. wuxuuna ku dhihi doonaa riyada waxaan ku dareemay wax fara badan. inaan farxad dareemi karo, inaan jecel dareemi karo, inaan murugo dareemi karo, inaan xanuun dareemi karo. wax walba ayaa ku arkay ayuu leeyahay riyada. Sofia way ka naxaysaa hadalkaas. waa hagaag waxaan arkaynaa boodkii oo Sofia u masaajeynayo jirka. wuxuuna bilaabayaa boodkii inuu dhunkado Sofia way kasoo kacaysaa. waxaasoo dhan waxay ahaayeen riyo. waxaa isku soo dhawaanayo Sofia iyo boodkii Henry ahaa. James oo qabay Sofia wuu xanaaqaya. wuxuuna wacayaa kambaniga ninka iska leh. wuxuuna ku dhihi doonaa waxaan ka shakisanayaa boodkan waxaan ugu shakisanahay xaaskayga. James ayaa wuxuu ku dhihi doonaa ninkii shirkadda iska lahaa sidoo jecel ugu dhici karaa oo xanuun u dareemi karaa robot. ninkii iska lahaa robotka ayaa wuxuu dhihi doono waxaa laga yaabaa inuu niga arkay adinka jaceylka iyo waxyaabahaas. wuxuuna dhihi doonaa robotku wuxuu samaysan yahay inuu barto nolosha dadka. laakiin James waxaasoo dhan kuma qanci doono. James wuxuu kusoo noqon doonaa xaafadda. wuxuuna amar ku sii doonaa boodkii Henry ahaa inuu ka leexdo oo ka fogaado xaaskiisa. waxaa hadli doono boodkii Henry ahaa. wuxuuna ku dhihi doonaa xaaskaada waa qof wanaagsan markastana waa caawiya aniga. wuxuuna ku dhihi doonaa aniga waxaan ahay bood jaceylna iguma dhacaayo. laakiin wuxuu leeyahay mar waxaan dareemaa jaceyl u qabo Sofia. James asigoo yaaban ayuu soo bixi doonaa. wuxuuna u imaan doonaa xaaskiisa. wuxuu u sheegi doonaa wax kasta oo soo arkay xaaskiisa. laakiin waxaa isla markii xanaaqayso Sofia. waxayna ku dhihi doontaa boodkan intuu sameynin waxyaabo qaldan kana fogey gurigan. maalintii ku xigtay Sofia ayaa waxay la kulmi doonto boodkii guriga u jooga oo ahay Henry. waxayna ku dhihi doontaa waxaa maqlaayay marunba. waxayna ku dhihi doontaa in aniga jeceshahay ayaa maqlay. laakiin Henry ay wuxuu ku adkaysan doono inuu iyada jecel yahay. laakiin jecelkaas uu yahay jecel oo iyada keerkareynaya ama ka taxadiraya nolosheeda. Henry wuxuu korka u masaajiyay doonaa Sofia. wuxuuna dhunkan doonaa Sofia. wuxuu ku dhihi doonaa Sofia waan ku jeclahay waxaan rabaa inaa nolosha ila wadaagtid. Sofia way xanaaqi doontaa. waxayna ku riyoonaysay ayaa waxay noqdeen mid dhab ah. Sofia sida uu dhaqsiyaa badan ayay waxay wici doontaa ninkeeda. waxaa imaana isla markii ninkeeda. waxayna u sheegi doontaa xaaladda. Sofia waxay ku
dhihi doontaa waxa ka shakisana ani robotkan waxaan robot maahan waa bilaadan laakiin ninkeeda James ay wuxuu ku dhihi doono botkan waxa ka qaldan systemka laakiin James wuu xanaaqaya wuxuuna u tagayaa botkii Henry ahaa wuxuuna ku soo dhufanayaa fear wuxuuna u sheegi doonaa inuu wici doono company iska leh asiga subaxdii ku xigtay intan imaanin company iska leh botkan Sophia wuxuu ku dhihi doontaa waxaan dareemayaa cabsi James haga tagin wuxuuna ku dhihi doonaa James waxaan aasanayaa shaqadeeda laakiin isla markii uu James baxo waxa qolka u soo galayo Henry oo ah botkii wuxuuna ku dhihi doonaa Sophia misku raacnaa meelaha lagu daawado filimada saa isku soo daawano filiman Sophia ay ka diidi doonto waxay ku dhihi doontaa maya laakiin Henry wuxuu ku dhihi doono wax walba oo dhac karaa la noqo ninkaada James wuu xanaaqay wuxuuna ugu dhuftay fear Henry ayaa wuxuu kale u sheegi doono Sophia inuu asiga dareemayo inuu yahay bilaadan wuxuuna dhihi doonaa waxaan dareemaa sida bilaadanka camal waxaana leeyahay dareen wuxuuna ku leeyahay waa ka helay waana ku jeclaaday laakiin isla markii waxa soo cararayso Sophia waxay ka soo cararaysaa botkii si toos ay waxay u imaanaysaa kambanigii ninkeeda James waxay u imaanaysaa ninkeeda oo ku jiro shir waxayna soo galaysaa qolka shirka waxay u sheegaysaa wax kasta oo ku dhahay Henry waxayna ku leedahay wuxuu ku dhahay waan ka helay waxa imaanaya kambaniga iska lahaay botka waxaan isla markii soo gaaraya ninkii ka ahaa madaxa shirkadda Julia dhanka kale waxaan arkaynaa James iyo xaaskiisa oo aad u murugaysan waxayna ka murugaysan yihiin botka wuxuu sameeyo Sophia ayaa waxay ku qaylinayso ninkeeda waxayna ku leedahay waxaan ku dhahay ila joog ilama joogti waqtiga u badan waxa ku bixisaa shirkadaada waxayna ku dhihi doontaa aniga uma baahnin miya waqti ina ila qaadati aad ila joogti mararka qaarkood waxay ku dhihi doontaa uma baahnaa lahayn inaan soo iibsado bot hadaa ila joog leedahay adiga Sophia iyo James waxay soo raadi doonaan botkii Henry ahaa waxayna ka arkayaan daaqada asigoo taagan banaanka Sophia waxay hore soo qaadanaysaa midi James iyo xaaskiisa waxay u imaanayaan botkii Henry ahaa wuxuuna taagnaay banaanka asigoo feer qaaban waxa laga dareemayaa wajigiisa cara aad u fara badan botkii Henry ahaa wuxuuna ka xanaaqsanay Sophia markuu ku dhahay waxaan isku raacaynaa meelaha lagu daawado filimada ee ka diiday sida uu dhaqsiya badan ay ka soo cararayaan meesha James iyo Sophia waxayna imaanayaan police stationka waxa ka soo raacaya laba nin oo ah police waxayna soo aasi doonaan meeshuu joogay botkii Henry ahaa ninkii iska lahaay kambaniga magaciisa lahaay Julia isla markii askartii ay wuxuu ku dhufanayaa qoray wuxuuna la joogo waqtigaasi Henry ay wuxuu ku soo boodaya ninkii iska lahaay kambaniga Julia wuxuuna meesha ku dilayaa ninkii iska lahaay kambaniga Julia Henry wuxuu qabtay shaqo aad u fiican wuxuuna halkaas ku badbaadiyay James iyo xaaskiisa Sophia wuxuu ku dhihi doonaa hay sheegina waan iska baxayaa halkaasna waxa iskaga baxayo robotkii Henry dhamaadka filimkeena waxaan arkaynaa Sophia iyo ninkeeda James oo u dhashtay caruur yar filimkeena maanta wuxuu ku egyahay meeshaas inta ku kulmina filim noocan camal waxa kaga tagay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh